waxaa sidoo kale xafladan khudbada ka soo jeediyey hoggaan ku-xigeenka xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida iyo taliyaha guud ee ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida waxaana hadalladoodii ka mid ahaa ajiri doonta oo ciidanka ku moral gelinayna weligood lama xusin maalintii la aasaasay ciidankan new booliska laakiin ka xukuumad ahaan hadda geedib waxaa jiri doonta maalin aasaaskiinii iyo waxqabadkiinii iyo xuskiinii loo samayn doono hadduu ilaahay waa tii ugu horreysay ee tababar inta leeg la qaato iyadoo oo xirfadba kala duwan lagu qaatay taas oo ah waad aragtaan dhakhaatiir baa ku jirta digrii baa ku jira dibloom baa ku jira kumaandoos baa ku jirta tacliintooda iyo garaadkooda inta la eegay disciplinkooda si ay u noqoto tii hadda koor laga sheekayn jiray ee ciidanka loo arki jiray inuu ciidan hal qabiil yahay maanta ciidanka halkaa taagan gobolkeenna dadka ku nool oo dhan buu ka mid yahay waa kililkeenna oo yar oo halkaas ugu yimid xerada taasna waxay bedelaysaa hadalladii hore ee la odhan jiray ciidankan inta la iloobo waxqabadkiisa ama wuxuu qabanaya inta la iloobo la odhan jiray waa qabiil iyo waa harreer tii maanta ma jirto waad arkaysaan idinku taa waxaa dheer ciidankan waa markii ugu horreysay ee mushaarka loo kordhiyey iyadoo shaqaalaha kan loogu darin ayaa ciidanka waxa laga qabo ama aragtida laga qabo ama faa'iidadu leeyahay oo dawladdu ogaatay ayaa 30% ka badan loogu daray imbika markii bishii hamle aan dhaafnay 2500 oo askari oo ilaa alifle ilaa gaashaanla ayaa darajada loo soo kordhiyey hadda ka hor 700 oo nin oo laga qaaday darajada ayaa loo soo celiyay si xaq darri ah loo qaaday ayaa imika loo soo celiyay markaliya ayaa 47 koronel darajo la siiyay waa markii ugu horreysay kornelinta la siiyay marka wax qabayada 8 bilood ama 9 bilood ee isbeddelku yimid laga qabtay ciidanka gaarka waa wax badan laakiin waxyaalahaas ayaa soo qaadanaya intaasi kadib madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan saraakiisha gaalmaha ugu muhiimsan ka qaatay intii tababarkani socday iyo sidoo kale xafiisyadii kala duwanaa iyaguna qaybta ku lahaa ciidanka tababarka dhameysay dhinaca kale wuxuu madaxweynuhu abaalmarino guddoonsiiyay xubnihii askarta ahaa ee sida fiican intuu tababarku socday u qaatay abaalmarintaasi kadibna ciidankan dufcadda tobnaad ee qalin jabisay ayaa halkaas lagu dhaariyay waxaana dhaariyay gudoomiyaha guud ee maxkamadda dawladda deegaanka Soomaalida